kusoo dhawaada vloggeena maanta waxaanu joognaa meeshan waa rooftop ku yaala magaalada Paris markii aad magaalada timaado runtii waxaad magaalada oo dhan ayaa dusha ka arkaysaa waana free haddii aad timaado waxa weeyaan sawirro aad u qurux badan ayaa ku gali kartaa marka fadlan nala socda haddii aad nagala socoto TikTok-ka follow dheh YouTube-kana subscribe ku samee Instagram iyo Snapchat waa nagala socon kartaan dabcan sida hore idinkugu ballan qaadnay waxa soo socda video iyo vlogyo fara badan oo aan samayn doono oo aan kala joogsi lahayn mahadsanid marka aad gudaha soo gasho dabcan waxaad arkaysaa halkan waa meel aad u qurux badan dukaamo fara badan oo ku yaalay ay ka mid tahay hoostaas waxaa ka arki kartaa Chanel iyo store kale oo aad u fara badan Louis Vuitton halkan ku taalo iyo meelo kale aad u fara badan halkaas qofkii raba inuu sawir ku galo line baa jiro qofka wuxuu goosanayaa ticket kadibna wuxuu ku gali karaa sawir aad u qurux badan oo ku xasuusanayo halka hadda arki karto waxa weeyaan runtii meel aad u qurux badan sida hore kugu sheegay rooftop-ka kore waa bilaash waaye sawirraa ku gali kartaa muuqaalaha ka duuban kartaa haddii qof jeebkiisa uu buuran yahay aad tahana dabcan waxa weeye waxaad iibsan kartaa Chanel ama Dior Louis Vuitton whatever oo aad markaa awoodid inaad gadato
runtii waxaan aad uga xumahay mar kale in kaamirada aysan aad u soo dhaweyneynin magaalada, laakiin waxaan ku ballan qaadayaa inuu noqdo haddii halkan timaado view ama muuqaal aad u qurux badan oo magaalada inaad daawato. marka dabcan haddii aad waqti hayso magaaladana joogto ama aad fasax u timaado waad imaan kartaa, waa free. sidoo kale halkan waxaa ku taalla restauranti oo markaas aad haddii aad rabto shaah ka cabi karto, coffee, aad asxaabtaada qofkaad jeceshahay maarabtaada aad kula sheekaysan karto. waxa aad markaas dusha aad ka arkaysaa 360 degree guud ahaan magaalada Paris. markaad maqaayadan gashano waxaad helaysaa privacy maadaama inta kale ay tahay meel babliga oo dad badan ay joogaan. marka laakiin diyaar garow in jeebka uu xanuunsado.